dhammaan meel kasta ay joogaan qaybta koobilaatanaad. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib aad iyo aadaan ku mahadcelinaynaa duruufaha iyo waqtiga aad ku shaqayseen iyo saa u gooteen waajibaadkiinnii qaran ee ladii idmaday annagoo og runtii inay ay jiraan inaysan dhammaystirnayn waxa wax kasta oo loo baahnaa oo ama agab ah ama lagu howlgeli lahaa haddana si buuxda ayaad u gudateen waajibaadkiinnii qaran uga soo baxdeen cadawga u hor istaagteen deegaanka u hor istaagteen horey uga wiiqdeen welina hor taagantii aad iyo aadaan ugu dhiiragelinaynaa inkagana mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan idiin ballan qaadno haddii ilaa yidhaahdo cadowgana waa dhammaystiraysaan waxa idinka dhimanna waa helaysaan insha allahu tacaala dowladnimo qarannimadannadii sharafkanagii inaan soo ceshanno cadowgana dalka ka qabanno cid kastoo cadowga caqabadihina cadowgay waxay u noqonaysaa gacan si aysan ogeyn iyo say og tahayba waxaan ognahay maalin walba isku dhacyo iyo waxaan loo baahnayn iyo dad ehel ahoo isconaya ama isdhibaataynaya ayaad ka howlgashaan kala dhicintooda kala celintooda kala qabashadooda taasoo aan dhab ah inay cadowga kaalmaynayso dadkaana ay dhibayso masaakiinta ah oo laisku dhibayo iyadana ilaahay idinkii waa aad iyo aad baan ugu kalsooni ugu qabnaa inaynan dib dambe u dhici doonin oo aan joojinno xadgudubyada gudaha shacabka iyo dalka dhexdiisa laga wado oo ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta koobilaatanaad ay xoog iyo xeelba ka hor istaagaan dhammaan waxaan dardaarmaynaa haddii ilaah yidhaahdo hawshu meeshii ay noo joogtay iyo intii aan qabanaynay waa ka gudbaysaa waxaanan u gudbaynaa xoraynta dalka cadowga meelaha ay ka joogaan diyaargarowgeedii iyo ku talagalkeediina meel fiican buu joogaa waan soo dhammaystirmayaa kalsooni buuxdana waa ku qabnaa ciidamadii geesiyaasha ahaa oo aan hubo inay in badan halkaan ka joogaan inta kalena ay dib uga soo biireen oo ay yihiin kuwa lamid ah ee horay u tusay cadowga inaysan shacabka soomaaliyeed dulaysan karin inta ay hadda ku hareenna insha allah gacantoodaan ka bixinaynaa gacantoodaan ka bixinaysiin waana u diyaargaroobaysaan innaguna dadaalkeennii iyo intii aan idinku soo aan soo biirnay dadaalkeennaga idinku soo biirinaynaa waxa dhan baan dhammaystiraynaa waxaa la heli karaa idinku daraynaa haddii laa yidhahdo waa la diyaargaroobayaa waa la dhaqaaqayaa dhinac walba iyo meel walba oo u baahan in dowladnimada laga taabageliyo laga hirgeliyo hore loo qaado dowladda hala qaado ayaa ku dhaqaaqayna ummaddeenna waxay caqabada ka jirto iyo caqabada ka jirto waa u nasteexanaynaa gacantaan ka qabanaynaa waxaan leenahay iska daaya cadowgana waa iska qabanaynaa intee kalena gacantaan ka qabanaynaa wixii dhibaato ah oo dowladnimada ku ah caqabad ku ah aad iyo aad mahadsantihiin ilaahay idankii diyaargarowga aad maanta ku jirtaan hore looga soconayaa oo inta ka dhiman lagu darayaa oo wixii ciidanka lagu talagalay oo howlgalkooda ah ama arrimahooda ciidan ah ayaan ka shaqaynaynaa waxaan kala shaqaynaynaa madaxda ciidamada haddii laa yidhaahdo waana idin soo gaaraysaa ku talagala ku dhiirada ciidankii shalay aan jooginna oo aan shalay xeradan iyo aan joogno maanta kusoo biirayna iyagana waa taliyaashaan kaa soo hadlaynaa ilaah idankii howlahooda iyo arrimahooda gaarka aad iyo aad mahadsantihiin ballanteennu waa guul inaan xaqiijinno cadowgana ka qabano dalka insha allah aad saan